Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkani waa janaalkeena runta wararka. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona qaramada midoobe oo ka hadashay matalaada haweenka eedan u jeedisayna madaxda maamul goboleedyada dalka. Dani oo kulamo la yeeshay isimada Puntland iyo taliyayaasha ciidan. Muuse Biixi oo dagaal ugu hanjabay Soomaaliya. Dagaal laga cabsi qabo in uu mar kale uu ka qaraxo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle iyo madaxweynaha maamulkaasi. Madaxweyne Biden oo ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub oo ka dhan ah Ruushka. Ukraine oo shaacisay in dagaal ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan ciidanka Ruushka. Wararkaasi warar kale ayaan daawadayaal warka janaalkeena runta wararka idinkugu soo gudbin doonaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. Qaramada midoobe ayaa waxay si gaar ah kaga hadashay qoondada haweenka in la dudsaday isla markaana eedeyn u jeedisay madaxda Soomaalida. Xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa madaxda maamul goboleedyada ku eedeeyay qaabka doorashada Soomaaliya ee u socoto. Qoraalka soo bax xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan aad uga xunnahay doorashada Soomaaliya qaabka ay ku socoto isla markaana cambaareynayna wax waliba sida ay ku soconayaan. Xafiiska qaramada midoobe ayaa waxay sheegeen in marnaba aan loo dulqaadanaynin in ay mar walba ay dib u dhacdo xaaladda doorashada Soomaaliya gaar ahaan qoondada ay ku lahaayeen haweenka Soomaaliyeed. James Swan, ambassadorka guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada si gooni ah ay qaramada midoobe ugala xisaabtami doonaan isla markaana tallaabo kasta loo baahan yahay in qoondada haweenka marnaba aan laga weynin baarlamaanka Soomaaliya. Haddana waxaa jira culeysyo kala duwan oo ku aadan baarlamaanka. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamul goboleedyada gebi ahaanba loo sheegay haweenka inaysan boos wanaagsan ayna ku lahaanin baarlamaanka soo socda. Baarlamaanka 11aad ayaana waxa uu haatan u muuqanayaa in aysan saameyn ku lahayn haweenka Soomaaliyeed, walow madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug ay si gaar ah kaga gaabiyeen garab istaaga haweenka Soomaaliyeed iyo booskii ay kula hayeen baarlamaanka. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa la kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka maamulkaasi isagoona si gooni ah kagala hadlay xaaladaha guud ee halkaasi ka jira. Magaalada Boosaaso waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo isimada gacanta ku haya dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso. Kulanka waxaa qayb ka ahaa taliyaha ciidanka daraawiishta Jenaraal Yaasiin Cumar Dheere, taliyaha booliska Jenaraal Maxamed Cali Xaashi iyo Jenaraal Maxamuud Cismaan Cabdulaahi Diyaana, agaasimaha ciidanka BSF-ta. Waxaana diiradda lagu saaray sidii ciidamada qalabka sida ay dib ugu wada shaqeyn lahaayeen iyadoona dhammaan ay la sheegay in ay dib ugu laabanayaan fadhiyadii ay horey uga soo kicitimeen. Madaxweynaha isimada ayaa iyaguna kulan labaad la qaatay guddiga loo xilsaaray dhibaatadii ka dhacday dagaalkii Boosaaso iyo gudoomiyaha gobolka Bari duqa degmada Boosaaso, waxaana uu madaxweynaha u amray in si degdeg ah wax looga qabto dhibaatadii dhacday. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa horey waxa uu sheegay in tallaabo kasta ee maamulkiisa ay qaadayaan ay noqon doonto mid si cad loogu garab istaagayo shacabka Soomaaliyeed. Dhanka kalena waxaa laga cabsi qabaa in mar kale dagaal uu ka qarxo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in laga cabsi qabo in dagaal gacan ka hadal ah uu dhexmaro madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaaw Xuseen. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in cabsi xoogan ay jirto iyadoona shacabku ay ka baqdin qabaan in dagaal toos ah uu dhexmaro madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha maamulkaasi. Wararka ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in dagaalka uu keeni karo madaxweyne ku-xigeenka uu doonayo in kuraasta qaar la xiro isla markaana shakhsiyaad ay wadato filla Soomaaliya loo xiro. Asaate Cali Guudlaaw Xuseen, madaxweynaha maamulka Hirshabelle, ayaa waxa uu ka soo horjeedaa in gebi ahaanba koox gaar ah loo xiro kuraasta. Musharaxiinta qaar ayaa weli waxay yihiin kuwa ka soo horjeeda go'aankaasi uu gaarayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Yuusuf Dabageed ayaa tallaabadani waxay u muuqanaysaa mid dhibaato badan ay ku noqon doonto.
dhanka kalena madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu dagaal uu la geli doono Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa toddobaad gudihiisa mar kale ka hadlay suurtagalnimada dagaalka ay dowladda Soomaaliya ku soo qaaday Somaliland isagoona sheegay in Somaliland iska difaaci doonto. madaxweynaha ka hadlay munaasabada ay ku qalinjibinayeen saraakiil ciidan ah ayaa sheegay in Somaliland ay iska difaaci doonto dagaal kaga yimaado Soomaaliya haddii dowladda Soomaaliya ay dagaal ay ka fursan weydo. waxa uu sheegay in ay mar waliba maamulka Somaliland ay diyaar u tahay in ay dagaal cad ay la gasho dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. mas'uuliyiinta maamulka Somaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku hanjabayeen inay dagaal toos ah ay la geli doonaan ciidamada militariga Soomaaliya. dhanka kalena wararka ugu dambeeyay ee Ukraine iyo xaaladaha ugu dambeeyay ee wadankaasi ka jira. madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay cunaqabateyn cusub oo ka dhan ah wadanka Ruushka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii ku dhawaaqay mamnuucida saliidda Ruushka iyo tamarta kale ee laga keeno dalka Ukraine isagoona ka argoosanaya duulaanka Ukraine. Biden ayaa waxa uu sheegay in xulafada Yurub kuwaas oo aad ugu tiirsanaa saliidda Ruushka si loo go'doomiyo dhaqaalaha tamarta culus ee Ruushka iyo Putin baaritaano kala duwan lagu sameynayo. tanina waxay u muuqanaysaa in madaxweynaha wadanka Russia Vladimir Putin uu mar kale uu doonayay in uu tallaabooyin adag u qaado. madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa hore waxa uu sheegay in cunaqabateynta la saarayo wadanka Ruushka oo ilaaminayo dagaalka saddexaad ee dunida. tanina waxay noqotay mid baqdin xoogan ku abuurtay qaar ka mid ah wadamada caalamka oo la sheegay in dagaalka haddii uu sii socdo dhibaato badan uu dhalin karo. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan go'aankani ay dowladda Mareykanka ay soo saartay in saameyn badan uu ku yeelan doono dhaqaalaha madaxweynaha wadanka Russia Vladimir Putin. inkastoo madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky dhaqaale fara badan uu haatan uu ka helayo wadamada dunida, haddana go'aamada adag ee mararka qaarkood la soo saaraya ayaa saameyn badan ku yeelanaysa dowladda wadanka Ruushka. ugu dambeyntii Ukraine ayaa shaacisay in dagaal ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan ciidanka Ruushka. sida ay sheegayso wasaaradda difaaca Ukraine, taliye sare oo ka tirsan ciidamada Ruushka ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay meel u dhow magaalada Kharkiv. taliyaha ayaa la sheegay in la dilay waxaana lagu magacaabi jiray Vital Karazimovich oo ahaa madaxa shaqaalaha iyo taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka 41aad ee xarunta dhexe ee militariga Ruushka. tanina waxay ka dhigan tahay in ay saameyn badan dagaalkani ay ku yeelanayso dowladda Ukraine ayaa waxa kale oo ay sheeganaysaa inay dishay saraakiil badan oo hogaaminaya dagaalka Ruushka. ilaa iyo hadda si madax banaan looma xaqiijin karo maadaama dhibaatada halkaasi ka jirto weli ay aad u badan tahay. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal wanaga intaa. haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. waadna mahadsantihiin nabadgelyo.